لكي نستغل من فرصتنا علينا أن نركز الحوار. جميل. ما الذي يدور في بالك مما تريدين أن نسلط الضوء في حوارنا هذا؟ xaflad ka dhacday hoteelka Wajir County Guest House ee magaalada Wajir ayaa waxaa ku qalin jabiyay arday luqadda Carabiga ka baratay macadka Al Furqan laantiisa Wajir. Ardadan ayaa soo bandhigay wada sheekaysiyo luqadda Carabiga iyo arrimo kale oo ay ku muujinayeen heerka uu gaarsiisan yahay tacliinta ay ka burmuseen ee luqadda Carabiga. فالاسم الكامل أيان عبد الخضر وأنت؟ وأنا محمد عباس عبدي وأقول لك معرفة سعيدة. My dynamic teachers and staffs, fellow students, dear parent, a pleasant morning and welcome to the graduation ceremony of Ma'had Al Furqan Academic, school year 2017-2018. The most significant event in students' life is none other than graduation. And since it is the end of this stage in our education, it is a mixture of joy and pain. Joy for reaching our goals, and pain for saying goodbye to the people who became a part of our lives. Fellow graduates, we are about to reach our diploma level. We must enjoy the next 2 years of our life in order for us to reach our goals of diploma and finally university. waalidiin culimadiin iyo mas'uuliyiin ka soo qayb galay xafladda ayaa hadallo ka soo jeediyay. si kastaba ha noqotee macadka Al Furqan ayaa waxaa aasaasay Sheekh Maxamed Sheekh Maxamed sanadii 2007 waxaana uu macadku haatan xarumo kala duwan ku leeyahay deegaanada gobolka Waqooyi Bari oo sanad walba ay ka takharujaan boqolaal arday oo baratay luqadda Carabiga. Xasan Mukhtaar Axmed Waayelka, warbaahinta Star magaalada Wajir.